بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baaritaankii ugu weynaa abid ee lagu sameeyo dadka awoodda leh sida ganacsatada, siyaasiyiinta, ciyaartoyda madaxda dalalka, boqorro iyo qaybo badan oo ka mid ah bulshada ayaa lagu soo bandhigay sida ay dadkaasi dalalkooda iyo bulshooyinkooda uga qariyaan lacagaha ay xadaan, cashuurta ay la baxsadaan iyo hantidooda xaqiiqda ah iyo weliba halka ay taallo. baaritaankan ama waxa loo yaqaano investigation ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneed ee la sameeyo marka laga yimaado warbixintii la odhan jiray Panama 2016 oo tan la mid ahayd. kusoo dhawaada Meecaad podcast. fadlan subscribe garee oo taabo jalaska si aan mawduucna kuu dhaafin. ha ilaawin share iyo like. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. baaritaankan oo ka kooban wax ku dhow 12 milyan oo xogood ama xaqiiqooyin waxaa lagu soo bandhigay wax ka badan 300 oo qof oo madaxa. waxaa ka qayb qaatay ilaa 600 oo saxafi iyo 150 hay'adood oo warbaahineed. isla markaana baaritaankani wuxuu socday muddo 2 sano ah. xogtan waxaa lagala soo baxay wixii dhacay 1970 ilaa 2020. xogtan Pandora Papers waxay kashifaysaa sida madaxda iyo dadka awoodda leh ay u qariyaan ama u lunsadaan hantida ay gacanta ku hayaan, ama ugu yaraan cashuurtii dalalkooda geli lahayd oo ay geliyaan dalal shisheeye oo kale. ujeeddada ugu weyn ee madaxdu sidan u samayso waa inay qariyaan qadarka hantiyada ay leeyihiin, lunsashada cashuurta, inay ka baxsadaan isla xisaabtanka iyo baaritaanada. shakhsiyaadka ugu waaweyn ee baaritaanka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Ingiriiska Tony Blair iyo xaaskiisa, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, boqorka dalka Jordan, fanaanada Shakira, ra'iisul wasaaraha dalka Czech Babis iyo xidiga gawaarida Formula 1 ee reer Canada. 32 trilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasaa inay sifo aan sharci ahayn u qarsadeen ama aanay cashuur ka bixin shirkado, ururo, dadka tujaarta waaweyn ah, siyaasiyiin iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah. lacagahan ama hantiyahan waxaa inta badan lagu qarsadaa jasiirado iyo dalal waaweyn sida Panama, British Virgin Island, Singapore, America, Britain iyo qaar kale oo badan. shakhsiyaadka warbixinta ku jira waxaa ka mid ah hooyooyinka madaxda dalalka adduunka qaar iyo xaasaskooda, iyadoo aan weli la garanayn tiradoodu inta ay leeg tahay. waxaa warbixintu sidoo kale soo bandhigtay hay'adaha fududeeyey in lacagahan la qariyo xogtooda. haddaba siday u dhacdaa waxa loo yaqaan offshore activities amba la goosashada hantiyeed. dhammaan shakhsiyaadkan awoodda leh waxay la xidhiidhaan hay'ado iyo shakhsiyaad ka shaqeeya inay howlaha dhaca iyo tuugada asturaan. waxay u shubaan lacagta la qarinayo iyadoo la marinayo waddooyin aan caddayn isla markaana aan si fudud loo heli karin. hay'adihii loo shubay waxay bilaabaan inay lacagta ku qabtaan shaqadii iyo siduu rabay mas'uulkaasi, sida in guriga loogu dhiso, ganacsi loogu furo ama akoon loogu shubo qof kale uu ku qoran yahay. mas'uuliyiinta falkaas geysanaya waxaa loo sameeyaa akoonno gaar ah oo faa'iidada ganacsigu ugu soo dhacdo isla markaana ku qoran magac qof kale oo aan isaga ahayn, sida qof ka shaqeeya hay'adahan hawsha wada oo kale. dhinaca kale, shuruucda adduunku waxay ogashahay in qof kasta uu ganacsi ka samaysan karo waddanka dibaddiisa isla markaana raadsan karo meel cashuurteedu yar tahay ama aan gebi ahaanba la qaadin wax cashuura. laakiin shakhsiyaadkaas waxaa waajib ku ah inay caddeeyaan sababta ay u qariyeen lacagahooda ama hantidooda isla markaana dalka dibaddiisa ugu saareen. ugu dambayn, shakhsiyaadkan waxaa la odhan karaa waxaa ku kalifay inay sidan sameeyaan waa cashuur qaali ah oo aan ganacsigoodu qaadi karin, madax iyo mas'uuliyiin qoysaskooda ka qarinaya xaqiiqda hantidooda, lacagta oo aan sharci ahayn isla markaana la qarinayo, sharciga dalka oo xadidaya dhaqdhaqaaqa hantiyeed ee madaxda dalalkaas. haddaba maadaama shakhsiyaadkan lacagta qarsanaya qaarkood ay joogaan ama xukumaan dalal dhaqaale ahaan liita hadda amaba hore u liitay, waxaa la odhan karaa waxay sababaysaa kala sarrayn dhaqaale oo bulshada dhexdeeda ah. tusaale, boqorka dalka Jordan wuxuu iibsaday guri gaadhaya 6.5 milyan oo dollar dalka Mareykanka, iyadoo magaalada uu ka iibsaday uu jaamacad ka dhigan jiray wiil u dhalay. sidoo kale waxaa la jebinayaa sharcigii dalka u yaalay iyadoo cashuurtii iyo dhaqaalihii dalka geli lahaa dibadda loo saarayo. ilaa hadda shakhsiyaadka ama dowladaha ka jawaabay warbixintan lama hayo cid qiratay ama sharciga hortimi, dhammaantoodna waxay baaritaankan ku tilmaameen mid aan waxba ka jirin. dhinaca kale, waxaa weli socda soo bandhigidda xogaha dhiman ee dalladdu soo wado inagoo dhowrayna waxa ka soo bixi doona.
su-aasha ugu weyne meesha taalla waxay tahay shacabka Soomaalidu maxay ka filayaan madaxdooda inay sameeyaan ama hadda ay gacanta kula jiraan oo la mid ah falalka noocan oo kale ah. Ma ka badbaadi karaan madaxda dalalka Soomaalida, Itoobiya, Eritrea iyo Djibouti? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.